wili waxa qabyo ah dhismaha wadada isku xirta isgoosiyada dabka iyo bakaaraha dadka isticmaala wadadan waxay ku sheegayaan inay dhibaatooyin badan ku qabaan marista wadadan waxa hadda la galay xilligii roobka waxa fadhiya wadadan qayb ka mid ah biyo waxaan la hadlay qaar ka mid ah dadka isticmaalo iskugu jira wadayaasha mootooyinka iyo sidoo kale dadka deegaanka ku dhawaad muddo hal sano wada ardayna waa ahay waan ku shaqeystaa balse muhiimadda ugu weyn waxay tahay bajaajta hadii wadooyinka magaalada ay nadiif noqdaan anagana shaqadayna aad ay noogu fududaanaysaa tusaale hadda waxaan ugu filan jidkan muddo ku dhow hal sano dhismo ayaa ka socota waayo jidadkii ka horeeyay oo soddonka iyo wadnaha iyo muddo waa la soo dhisay iyo waqti way qaateen laakiin jidkan saan dareemayn anaga dadka xaafadana waa nahay haddana muhiimad aad u weyn uu noo leeyahay laakiin dadkii dhisay ayaa ka gacan adeegay oo mar walba waa la diyaariyaa markii laamiga la saari rabo roob ay imaado anagana dib waxaan ku qabnaa xaafadda dhinacan ka soo galna xataa ma weynaa may tan aad iyo aad muhiimsan tahay dhismadaas in way baad arday wadooyinka oo ilaahay ama hadii shugla wadnaha in eed la dhiso tin ku muhiimsan bakaaro dadka ka shaqeeya wadada muhiimad oo weyn u leedahay wadada sidaas ismahan maartay nimanka oo meesha ka shaqeeya oo kandaraaska wato maartay nimankaas maartay aadi ma aniga saas ay la tahay hal san iyo waxa la jira socota mar walba maartay waa dumaysa mar walba maartay waa hadda arinteeda hata waliba hata aadi ma hatan waa sidii darada aad ku naqatay guri badan waa ka burburay wadadan hadii maartay aadnimo hadii jirto in oo maartay si fiican loo dhis aniga taas aan jecelahay dhinaca kale wadada isku xirta xarunta degmada Boondheere iyo Siinay waxa ka muuqda burbur xoogan biyo badan ayaa hor fadhiya halkii loo mari lahaa xarunta degmada Boondheere booyada ayaa ka daabulaya biyaha fadhiya halkaas mar sii horeysay waxa laami la saaray inta u dhaxaysa isgooska Boondheere iyo waaxiga daljirka Dahsoon wixii intaasi ka xageeyay wadadaasi ma helin wax laami ah oo isku xidhi lahaa guud ahaan wadadaasi maxamed culuw waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan degmada Boondheere waxa uu ka hadlayaa dhibta ay ku qabaan burburkii biyaha fadhiya degmadaasi Boondheere qayb ka mid ah saameyn kala marban dadaalay rabaan intay aystaan u fadhiisan in laga dadaalo bis kana ka dhalayso cudurka ka dhalahay waa ardada madow oo waxa maartay ilmaha iyo wasaqda ajra shalay daraad baa u jeeda booyadaha lagu dhuro laakiin roobka ka badan waa lagu dadaalo in buunda loo sameeyay in meel u gudbiyaan bis wax kale cudur ma leh markii uu xilka si rasmi ah loo wareegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso waxa istaagay dhismihii ka socday wadooyinka magaalada Muqdisho bilooyin kadib waxa bilowday dhameystirka wadada soddonka oo qabyo ahayd iyadoo ay taagan tahay baahida loo qabo isticmaalka wadada isku xirta isgoosiyada dabka iyo bakaaraha Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV magaalada Muqdisho